وسياسي أن هذا الذي يسوي ميلدين وسياسي يقول درهذا أبوه وحاول يسوي شرحي صدق شير وشجدا مدحتني مو يسوي شرحي يدون تدوينها السومالي لأن أي كديدين برنامج هذه السياسات وله ريمد مربى مركز كسر دم سنة تاجر دي سايوه سلسي دادرية لنعوا ديكتاتور يعني سجوا يسكور حينين وديكتاتور هاي taasina waxa marxaati ka ah sida uu xisbiga u cud gudoomiyaha uga yahay muddada ka badan 20 sanadood marna waa shakhsi aan aqoon abaalka waayo waxa uu abaalkoodii ka dhigay hal bacaad lagu lisay ragii jiilaala badan kala soo dabaashay xisbigan uu garwadanka ka yahay walina waa dulmiyahantiisa wata Faysal Ali Waraabi waa gudoomiyaha xisbiga u cid marka laga hadlayo u cid iyo Faysal waxa wadi sooranaysa malaha guul darrada ayay jaar leeyihiin waxa hore u jiray in rag siyaasiyiin ay hore isugu dayeen inay wax ka bedelaan dhibaatada xisbigan ka haysata siyaasadda laakiin waxa xisbiga xarig maran ku noqday gudoomiyaha Faysal Ali Waraabe isagoona balna furcadaana ku sameeyay rag xisbiga saymaha badan kala soo dabaashay kuwaas oo marar badan xisbiga ka badbaadiyay guul darrooyin soo wajahay maanta waxa uu guranayaa cuqubooyinkii uu ka galay siyaasiyiintii xisbigan ku soo bandhigay hankooda waxaana u baxaysa heestii ahayd ama dhamay qaraarkii waxaana uu wajahayaa tartankii ugu cuslaa ee Faysal uu kula kulma siyaasadda Somaliland taniyo markii uu xisbiga u cid majaraha u qabtay waxa uu lagdan adag uu kala kulmaya ururada siyaasadda Somaliland kuwaas oo qaybahood kamida ragii xisbigan hankooda hore ugu soo bandhigay Faysal Ali Waraabi waxa uu isku dayayaa sidii uu uga baxsan lahaa dhibaatadan siyaasadeed ee gundaha la soo gashay Faysal markii laga dhageysan waayay hadaladiisii u badnaa waxaynu samayn doonaa waxa uu miciin biday inuu marka uu ka qayb galo xafladaha loogu fooladaynayo ardayda ka baxda jaamacadaha dalka uu ka yiraahdo hadalla ay ka mid yihiin waxaan dhisaynaa dawlad waxa kursiga loo diidan yahay xaafadayada ma aqoonsanin dawladda hadda jirta iyo kuwa lamida oo dadka lagu kala fogeynayo meelaha uu hadallada ka sheegay Faysal waa halkii dadka laga jihaynayay waa baradii cilmiga waa meeshii ardayda looga sheegayay mustaqbalkooda laakiin Faysal waxa uu haystaa intaas wax ka bedelayso siyaasadda guul daraysatay ee hore bulshada ula horyimid dhinac marka laga eego waxa tarabuunka ama goobaha Faysal ka hadlaya soo buuxdaafiya dadka hadalladiisa ka dhiganaya maada iyo qosolka kuwaas oo markay Faysal arkaanba xasuusanaya riwaayadihii iyo majaajilooyinkii uu jeedin jiray Boonxirsi kuwaas oo u badnaa qosol iyo maad Faysalna waxa uu haystaa dad taageerayaal ah oo iyagu u soo buuxiyay tarabuunka si ay taageero u siiyaan laakiin Faysal waxaanu ogeyn sida ay bulshada reer Somaliland la fahantiisa uga dheregsan tahay Faysal inta badan waxa uu dawladaha ku eedeeyaa dictatoro laakiin isagu xisbigiisa waxa uu dictator ka yahay muddo ka badan 20 sanadood Soomaaliduna waxay tiraahdaa maroodigu takarta fooshan markay takalo arka